بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ولاليال waxaynu dhexda kaga jirnaa xalaqaadkii aynu ugu talagalnay dardaarankii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee markay xanuunada koroonaha iyo qeyrkeedba iyo waxa la midka ahiba ay yimaadaan ummadiisa u dardaarmay calayhi salaatu wasalaam. waxyaabaha uu inoo dardaarmay waxaa ka mid ah xalqadeena tobnaad inaynu ku dadaalno qiyaamu leylka, salaatu leylka, habeenkii inaad soo kacdo haddaad caafimaad qabto iyo haddaad xanuunsan tahay hal mar un baa lagaa dhaafay inaadan salaada tukanin oo ah marka aad kooma ku jirto ama aad qaybuuba ku jirto ama aad isla maqan tahay. inta kale ee ka horeysa oo dhan istaaga waxba haddaad kari weydo daruuri maaha, fadhi baad ku tukan kartaa, jiif baad ku tukan jirtaa, bar ee waxaad tukan kartaa adoo isbitaalka ku jira oo oksijiintu ay kugu xidhan tahay ayaad tukan kartaa. nabigeennuna wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo aan doonayaa inaan idinla wadaago 5 faa'iido oo qofku uu ka helo hadduu salaatuleylka soo kaco. allahu akbar, bal u fiirso, waa 5 faa'iido oo qofku uu ka helayo mu'minka ah ee salaatuleylka soo kacay. xadiidka waxaa warinaya bilaal ibn rabaax radiyallahu canhu oo aad wada taqaanaan oo kaalinta uu nebiga iyo laasimitaankiisa iyo nolosha nebiga halkuu kaga jiray aynu wada garanayno. wuxuu leeyahay bilaal radiyallahu canhu, rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ayaa ummadiisa la talinaya oo wuxuu yidhi calaykum biqiyaami leyl, mad yahay waxaad laasimtaan ood ka agdhowaataan ood ilaalisaan qiyaamu leylka, salaatuleylka ilaaliya oo salaatuleylka u soo kaca. maxaa laga helayaa? inaan soo kaco caawa. maxaan ka faa'iidayaa inaan soo kaco caaba? waa kow, faa'iidada koobaad, fainahu da'bu الصaalixiina min qablikum, waa dhaqanka dadka wan wanaagsan buu nabigeenu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. horta warka koobaad, oo haddaad salaatuleyl soo kacdo waxaad yeelatay ama aad yeelanaysaa dhaqan qof wanaagsan baad leedahay, qof dhaqan wanaagsan baad tahay, dadka wan wanaagsanna la dhaqan baad tahay. horta la soco. qodobka labaad iyo faa'iidada labaad, qiyaamu leylku alluu kuu dhaweynayaa subxaanahu wa tacaala. u fiirso, ilaahay buu kuu dhaweynayaa tabaaraka wa tacaala. yaa inooga baahi badan inaynu ilaahay u dhowaano oo aynu addoommadiisii oo dhaba noqono. qodobka saddexaad iyo faa'iidada saddexaad, wuxuu kaa celiyaa haddaad qofka qiyaamuleyl caawa tukaday inuu maanta ismi iyo dembi ku sara kaca wax fudud ma aha. dembigu kaa istaagaya, dembigu kaa ilaalinayaa, xumaantu kaa ilaalinayaa. faa'iidada afraad, dembigaa ilaahay kaagaga dhaafaya subxaanahu wa tacaala, takfiirun lisayi'aat, dunuubta iyo xumaanta ilaahay kaagaga dhaafaya subxaanahu wa tacaala. faa'iidada shanaad ee ugu dambaysa, waxaa lagu tilmaamay matradatun liddaa'i can iljasad, jidhka ayaa wuxuu ka caydhinayaa ama uu ka saarayaa ama uu ilaahay idamkiisa uu kaga bogsanayaa jirada iyo xanuunka, kaarka iyo dareenka xanuunka jidhka ku jira ayaa ilaahay kaga saaraya subxaanahu. marka haddaynu salaatuleylka walaalayaal aynu ilaalino waxaasoo dhan baynu ku helaynaa. bale nabigeennu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam arrimo dhowra oo jannada rabbi lagu gelayo. waxaa ka mid a qiyaamuleylka ka mid a oo ah inaynu salaada leylka habeenkii u soo kacno markay dadku hurdaan, markay dadku quurinayaan, markay dadku danahooda haystaan, inaad adigu ilaahay la faqaysa subxaanahu wa tacaala. wajaanis aad u qiimo badan, waa fursad muhiima oo ay fahmaan oy gartaan oo keliya dadka adkiyada ah, dadka maskaxda badan, dadka xisaabtamaya, dadka doonaya naftooda hamiga sare leh ee meel sare higsanaya. ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu inaga dhigo kuwa meel sare higsanaya ee jannat alfirdows laclaa higsanaya. ilaahayna subxaanahu wa tacaala kuwa jannat alfirdows laclaa isku arkaa inaga dhigo. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.